qoyska Caaisha Aadan oo ahayd gabadhii 12 jirka ahayd ee lagu kubsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya oo u soo qaxay una soo guuray magaalada Wardheer ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in ay u soo qaxeen xaalada amni darro oo ay hanjabaadyo u dheer yihiin iyo cabsi ay u cabsadeen carruurta iyo gabdhaheeda yaryar ee kale inay dhibaato kale ka soo gaadho waa sida ay sheegtay hooyo Saynab Cabdiwahaab Aadan oo ah Caaisha hooyadii dhashay mar ay warfidiyeenada SRTV xarunteeda gobolka Doolo ay ku booqdeen guriga ay ka soo degeen magaalada Wardheer waxayna tiri dhacdo fool xun bay ahayd oo caalamka dhan laga ogyahay dhacdadaas dareenka waa dareemi kartaa sidaan noqday ama aan noqonay marka waxa weeye meesha kolley waan u adkeysan weynay gabadha meydkeeda guriga iridiisa la soo dhigay guriga lagu dilay irideeda waxba uma jirin marka argagax anigana argagaxayga lama xisaabi karo ka muslimka ku dhacayna la mid buu ahaa marka waxa weeye saasaan soo guuray muxuu ahaa hadaan kaaga sheekeeyo soo geedigiina waxa weeye kuwa kale aan u baqay kuwa kale tiiga dhaqaaqada waxaan dhahaa arma iyadina sidoo kale loo galaa oo Saynab Cabdiwahaab Xareed ayaa waqti xaadirkan ku sugan iyada iyo carruurta ay dhashay magaalada Wardheer ee gobolka Doolo waana tan hooyo Saynab oo inooga warbixinaysa sababaha ay soo guureen iyada oo kiiskii Caaisha weli uu socdo dadkii lagu soo eedeeyna gacanta lagu hayo iyo weliba heerka kiiskaasi marayo carabkana ku dhufatay in kiiska Caaisha uu gaadhay xukuumadda ugu sareysa dawlad goboleedka Puntland jawaabna laga sugaliyo Ilyas Aadan oo ah aabaha qoyskaasina arrimaha jawaabtaasi iyo in Caaisha kiiskii foosha xumaa ee loo geystay cadaalad la waafajiyay darteed uu ugu haray magaalada Gaalkacyo kolley hanjabaad way iska jirtaa dadkii falka sameeyay dadkiisi waa deganaayeen oo rag iyo dambiilayaal ah la wada og yahay u doodayay degan way degan marka waxa weeye in xun in isku raacsan way jirtaa marka anagu abni darro ilmahaas aan wala soo cararay baan soo baxay maykiiski wuu socdaa ragiina waa la hayaa anagu aan naqaano waxa raadkoodii ruuxoodii gabigooda aan naqaano waa la hayaa intay keensadeen ayaga yaqaan waa laga keeni karaa kuway keensadeen ugu dambeyn hooyo Saynab Cabdiwahaab oo arrimo badan oo ku saabsan kiiska foosha xun ee loo geystay gabadheeda Caaisha oo 12 jir ahayd oo la isugu daray dil iyo kufsi fool xun nooga warantay ayaa sheegtay xaaladaha ay hadda ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ay ka filayaan magaalada Wardheer ay soo degeen bulshada ku nool xagga nidaamyada maamulka iyo gabi ahaanba fariimaha ay Soomaali oo dhan ay u gudbinaysa inta daawanaysa iyo inta kaleba arrimahaasi oo mudan in laga taageero qoyskan dhibaatada adag ay ka soo gaadhay magaalada Gaalkacyo ayaa sidoo kale sheegtay magaalada Wardheer iyo dawladda deegaanka Soomaaliduba ay yihiin deegaankooda labaad ayna degeen guryahoodii ay awal 15 sano oo ka hor magaalada Gaalkacyo ugu guureen 15 sano xagga deganeen halkana waan deganaan jiray marka dhulkayagii waan ku soo noqonay nabadgelyo waana ku haysanaa waana ka filanayna intaas kaliya aan nagu filan nabadgelyadaas ana ilmihiga iga baqaba ana u baqaynin iga baxa ana u baqayn intaas aan ku qanacsanahay in kasta isagoon in kala ayadoon la gaarin Maxamed Faarax Indha Cadde telefishinka caalamiga SRTV magaalada Wardheer